ciidanka qalabka sidee wadanka Iran oo xalitoole guul aad u balaaran ka soo hooyay duqeyntii baaneed ay ku qaadeen gudaha Israa'iil ayaa dhanka kale soo saaray hadal digniin oo toos si shakhsi ah ugu socda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayagoo erebixin cusub oo isticmaalay sidoo kalena sheegay haatan iyo wixii ka dambeeyay inuu bartilmaameedkooda koowaad u noqonayo cabsi aad u xooganaya soo food saartay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu kadib markii la sheegay in dhaar toos ah ay uga timid maamulka ciidamada qalabka sidee wadankaasi Iran ee loo yaqaan Al-Quds marka horeysata way ku soo dhawaada barnaamijkeena warwareyn inaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo xaaladda marka dambaysa isoo taraysa ee ku aadan in Israa'iil ay dhankeeda isku diyaarinayso iyaduna inay tallaabooyin hor laga qaado xaaladda gobolka bariga dhexe ayaa u muuqata marka dambaysa inay ku sii dhawaanayso dagaalka foolka foola oo si toos ah u dhexmara dhinacyada dalalka Israa'iil iyo waliba Iran taliska ciidanka qalabka sidee wadankaasi Iran ayaa hadalkii wali ugu kululaystay markaana ugu eray bixinta xumaa marka laga hadlayo inay maqlaan dhigaha nidaamka sanuuniyadda abidna ugu si daraa u soo saaray war qoraal ay ku qoreen bartooda X horeyna lagu yaqaanay Twitter ayay ugu yeedheen Netanyahu inuu yahay qof aan xalaal ku dhalan sidaa daraadeedna waxa ay sheegeen in eray bixintaasi ay u isticmaaleen uu ku haboon yahay waxay ku tilmaameen inay ninka aan xalaasha ku dhalan ee ku dhumaalaysanaya ay yiraahdeen dhulka hoostiisa waa laga soo saaraya isla markaana wuxuu noqon doonaa bartilmaameedkeena waxay ka digeen haatan iyo wixii ka dambeeyay inay noqon doonaan qofka isaga ugu horeeya ee qaarajiyaan tani waxay u egtay in haatan isugaarsiga bariga dhexe ka bilowday uu ka wan yahay abid in shacabka kaliya lagu dulmeeraysto Mareykanna toos isku tumaatinayo ayadoo dalalka reer galbeedku ay labadii yeereen kadib markii Iran ay haraysay xalay oo dhan gantaalana ay ku garaacay ayaa marmarka ka dambaysa waxay u egtay inay tani kor u sii qaadi doonto sida dalalka reer galbeedku ay kolba marka u dambaysa ay ugu fashilmayaan afaafka caalamka iyo waliba lensiska warbaahinta waaweyn xataa warbaahinta reer galbeedka laftooda ayaa hadarta is haywaayay inay taxaan wadamada reer galbeedka sida Tripelka u soo taminaya in Israel weerarka ka dhankaya ee Iran ay qaaday la cambaareynaya kaliya ayadoo gabi ahaanba weerarka Israa'iil qaaday gorsii horeysay oo 3 maalmood ka hor isla markaana ay si toos ah oo dhinaca dhul iyo cirba ay ka weerartay marka la isku daro muddo 10 maalmood ku dhawaada wadanka madaxa banaan ee Lebanon loo yaqaan ciidu dhag jalaq u siinin isla markaana aan la cambaareynin oo laga gabangaabsaday in la cambaarayo taliska ciidanka wadankaasi Iran hadaba waxa ay sheegeen in digniinaha ay soo saarayaan ay yihiin kuwa ay ugu talagaleen si dhaba in loo qaato Iran waxa ay gabi ahaanba ku tilmaantay in weerarada ay qaaday ay hayeen jawaabo laga bixinayo weeraradii ugu dambeeyay ee lagu beegsaday ay yiraahdeen dadkii shuhadada ahaa iyo halyeeyadii waaweynaa ay yiraahdeen cilaaqaad kala lahaa Iran oo ugu horeeyay hogaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniya iyo ninkii loo jeeday Xasan Nasrallah ee ururka Xisbullah iyo sidoo kale saraakiil ay ku dhaadanaysay oo ay sheegeen in la dilay afyeenka ciidanka Israa'iil Dayan Hagar ayaa geersi horeysay sheegay inay hadda garanayaan inay jiraan khasaare aad u weyn oo gaaray laakiin marka dambe waxa uu sheegay in uusan ilaa hadda hubin war dhaba oo ku aadan khasaaraha dagaalka ka dhashay wakaalada wararka ee wadanka Falastiin Waafa ayaa geersi horeysay sheegtay in aaga loo yaqaan Tarish oo kamid ah meelaha ciidamada Israa'iil ee degan yihiin in qof agmarayay oo Falastiini oo kamid ah dadka dhintay taasoo kor u sii qaaday in Israa'iil si dhaba u qarisay khasaaraha ciidankeeda iyo agabkeedaba gaaray ayna ka dhigantahay marka dambaysa in Israa'iil aysan doonaynin in shacabkeeda ay baqdin geliso shacabka Israa'iil oo xalayto oo dhan ka buuxay isla markaana ku xareysnaa meelaha loogu talagalay dadku inay ku gabadaan iyo militarigu markii dambe ay ku abhiyeen inay ka soo baxaan isla markaana aysan waxba jirin dhinaca kalena golaha wasiirada Israa'iil oo xal oo dhan ayaguna gacan ku gabadha oo seexan ayaa lagu wiirsaday kadib markii la sheegay in badan ay jirtay in wadamada caalamka islaam aan laga seexan gaar ahaan dalalka ay Israa'iil ay bartamaadka ay ka dhigato isla markaana ay gantaalaha kala duwan ee marmarka dambaysa ku garaacayso wararku waxay xaqiijinayaan in haatan ciidanka Iran eray bixinta ay u isticmaaleen hogaamiyaha Israa'iil Netanyahu ay noqonayso mid la yaab leh waxay ku tilmaameen nin ay gabi ahaanba ah ayaa la yiri mid aan xalaal ku dhalan ereygaasi waa mid la yaab leh ninka aan xalaasha ku dhalan ee baqaya ee ku dhuumanaya ayay yiraahdeen dhulka hoostiisa waa laga soo saari doonaa isla markaana wuxuu ku bixi doonaa oo sababsan doona gacanta ciidanka Iran ayaa lagu qoray war kooban dhinaca kalena waxa ay sheegeen inay 10 meelood ay bartilmaameedsadeen barta X waxa lagu qoray ilaa iyo 8 goobood oo waaweyn oo ay burburiyeen waxay raadeen taliska ciidanka Israa'iil ee gabi ahaanba ku sugnaa eega ku dhibaateynaya dadka reer Falastiin ee Rafah gaar ahaan dhinaca loo yaqaano Philadelphia Corridor iyo kuwa kale u dhanaan Nibtaas intuba waxay galeen gacanta agabka iyaga isla markaana way burburiyeen dhinaca kalena warbaahin aan la cadeynin cidda ay u shaqeeyaan laakiin la aaminsan yahay inay ka tirsan tahay Israa'iil ayaa sheegay goorsi horeysay in la weeraray xarumaha ay ku kaydsan yihiin qaar kamid ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ku dhaadato kuwaas oo dagaalka ka qayb qaatay F-35 inkastoo Israa'iil ay qarisay dhammaanba waxyaalaha dhacay laakiinse waxaa muuqata in muuqaalada ee dadka shacabka ay duubayeen ay muujinayaan inay si aad u baaxad weyn ay u burburiyeen goobo
dhinaca kalena nidaamka Iron Dome ayaa la arkayay oo jiha cidla isku qaaday isla markaana ku fashilmay in uu qabto gantaalaha ballistic missileska Iran ay ku soo gantay militariga Iran waxa haatan ay sheegayaan in bartilmaameedku uu ahaa mid cayiman isla markaana sanjabis ah isla markaana ay ugu tilmaameen inuu noqon doono mid ay Israa'iil ay ka noqon doonto oday ka sheekay dhinaca kalena waaxda gaashaandhigga dalka Mareykanka xogiyooda Gear Aston oo asagu kaliya ka adag inuu mar walba uu dhaho waxaan la hadlay Yoav Gallant ayaa sheegay inay iska wareysteen waxa uu ugu yeeray weerarka aadka u foosho xun ee Iran ay ku soo qaaday Israa'iil waxa lagu soo qaaday duulaan kartara sidaadna waxa aan u sheegay ayuu yiri gabi ahaanba in aan diyaar u nahay waxa uu iga celiyay inaanu ka qayb qaadanay ilaa iyo ku dhawaad 200 oo gantaal oo Israa'iil gudaheeda gali lahaa oo aanu caabinay ayuu ku tooxay tani waxay ka dhigan tahay in isagu kaliya waxa uu u shaqeynaya waxaana dadka qaarkood ku tilmaameen inuu yahay wasiirka gaashaandhigga ee nidaamka sanooniyadda bedelka uu noqon lahaa wasiirka gaashaandhigga Mareykanka waxa la arkayay iyadoo dadka reer Israa'iil ay sida koronkorada isku dulfuushan yihiin isla markaana ay isku buquujinayaan isla markaana ay isku dhuriixayaan oo isbuursadeen goobaha ay ku sugnaayeen ay ku gabanayeen ciidanka Israa'iil ayaa isku dayay inay shacabka dajiyaan isla markaana ay qariyaan xogta ku aadan si aysan u salbabixin tani waxay ka dhigantay ayaa leeyahay in riyo dhaba ay ku nooshahay Israa'iil oo looga digayay dagaalka bariga dhexe hadii la isku hoobto inaysan cidina ka badbaadi karin xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa aflabadii yeeray dhowr senatar oo horkacay senatarka loo yaqaan Lindsey Graham ee dagaalku madax maray ayaa waxa ay ku baaqeen in dagaal la qaado Marco Rubio ayaa kamid ah dadka iyaguna sheegay in Mareykanku uu dagaal culus ku qaado waxay ugu yeedheen goobo cayiman oo ku yaala Iran isla markaana ay qarxiyaan ninka loo yaqaan Mike Lawler ayaa sheegay in Israa'iil gabi ahaanba aysan ahayn in la weeraro si adraadeedna ay gabi ahaanba muujinayso tani waxay leeyihiin dhibaato aad u xoogan oo Israa'iil jiritaankeedu hadda qiiqid yahay si adraadeedna loo hiiliyo oo wax degdeg ah la qabto dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa isaguna wadamadii Carbeed iyo Israa'iil diyaaradoodii flight way ka joojiyay dagaalka Urdun Iraq Iran iyo Israa'iil gabi ahaanba ma tagi doonto diyaaradeeda flight Dubai ayaa la soo qoray iyadoo dalka isku tagay Imaaraadka Carabta oo ah wadanka kaliya khaliijka ee diyaaradihiisu ay tagaan Israa'iil oo u muuqday mid gabi ahaanba joojiyay dhowr talaabo oo ugu yeeray in ay ku hakinayaan xaaladda oo sii xumaatay marka la soo koobo Iran hadarta waxa ay ka dhigatay bartilmaameed Netanyahu wuxuu bartilmaameed ka dhigtay hogaamiyaasha ururada ay Iran taageerto sida daraadeedna arrintu waxay u egtahay hadarto in shakhsiyan uu u dareemayo ayaa la cabsi aad u xoogan tan iyo xalay intii uu gudaha ku jiray godka Netanyahu iyo golihiisa wasiirada oo la sheegay inay isku